السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. guys sida iga barateen aniga badana waxa u badanahay dhanka gabdhaha markasta gabdhaha wax u sheegaa wiilal badan oo ila soo hadleen waxay ku dhaheen adiga maalin kasta gabdhaha unbaad wax u sheegtaa anaga waxba nooma sheegtid insha Allah barnaamij waa idin soo diyaarin doonaa hadda waxaan wadaa barnaamij halkan waxaa ka sheegi doonaa qodobo dhowr ah oo gabar kasta ku soo jiidan karto xaajigeeda ama ninkeeda insha Allah barnaamijkan bilaabanayna qodobka koowaad waa dhageysiga wanaagsan aad iyo aad ay u fiican yahay markasta xaajigaaga waa inaad dhageysatid ilaahay quraankiisa wuxuu ku leeyahay alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah yani kuwa wax dhageysta waxay dhageysteena wanaaga ka qaata yani waxa fiican ka qaata in la isdhageystaahi waa wax aad iyo aad u fiican in hadalka la isku celceliyo wax fiican ma ahan oo ninkana naagtiisa uu dafiro naagtana ee ninkeeda dafirto markasta gabar waxaan kugula talinayaa inaad ninkaaga dhageysatid oo wax kasta uu ku sheego horta ka dhageyso ragga aad u jecel yihiin dumarka dhageysto qodobka labaad hadalkaaga nuxur u yeel oo u adeegsan ninkaaga erayadan sida xabiibi xayaati macaan qalbi erayada wanaagsan oo macaanka badan waxay sabab u yeelanaysaa qalbiga ninkaaga inaad soo jiidatid ninkaaga markaad mar walba u adeegsatid ereyo macaan badan qalbigiisa taabanayo run ahaantii kuma iloobi doono markasta wuxuu leeyahay waaw qoftii wallahi ereyo macaan bay dhihi jirtay qodobka saddexaad ku dadaal nadaafada gurigaaga jirkaaga iyo tan caruurtaba ogow ragga waxay aad u jecel yihiin dumarka uduga badan haddii uu markuu ninkaaga guriga ka soo galo aad u soo oorto ama ilmihii oo daycan uu arko ama gurigii oo foolxumo badan uu arko ogow ma noqon doono ninkaas mid sidaas ku qanacsan ee wuxuu raadsan doonaa mid kaleeto oo adiga kaa fiican oo kaa nadaafad badan ayuu raadsan doonaa qodobka afaraad xaajigaaga waa inaad ugu dadaashaa cuntada oo aad siisaa cunto fiican cuntada shada u karisa ma ahan mid kale waa inaad u karisid mid ka duwan oo ka qurux badan oo ka caraf badan waa in uu ka dhirgaa cuntada hore waxaa loo yiri nin shantiisa canug shantiisa farood uu dhuqdhuqba ugu fiican mahmaada Soomaali baa hore u tiri marka ninkaaga calooshiisa waa inaad ogaataa markasta waa inaad siisid wax uu ka dhargo asiga qodobka shanaad amaan ninka ragga wax uu ka jecel yahay ma leh in la amaano markasta ku dheh thank you wax fiican ayaad sameysay maasha Allah waa dadaashay ereyo macaan badan iyo dhiirigelin markasta dheh hore u soco qodobka lixaad u dulqaada ninkaaga dib kasta ugu samee dulqaadku run ahaantii aad buu muhiim u yahay lamaanaha marka isqabaan waxa aad iyo aad u fiican inay isku dulqaataan si uu qoyskaas u noqdo mid tayo leh adiga noqo qof tanaasul badan markasta ninkaaga u tanaasul haddii uu ka qaldan yahay xataa qodobka toddobaad raaliyo u noqo xaajigaaga wax kasta uu ku faro wanaaga ka qaado ragga way jecel yihiin dumarka ajiib oo markasta adeeca ninkaaga xishmay oo markasta adeec qodobo ayaan tirin doonaa qodobadan qoftii leh ragga ma jecla way neceb yihiin iska ilaali marka hadii aad sidaan tahay iska bedel insha Allah ha noqonin mid xanuun badan markasta xanuunsan oo jiifta markasta quraaca laga sugayo way jiranta ayada qadaa laga sugayo way jiranta cashaa laga sugayo way jiranta every day maalin kasta way ku xanuunsan tahay sariirta jiifta ha noqonin mid calaacal badan markasta way calaacalaysa saacada ay halooday kabiya ay goyn miiskii ay jabay markasta way ku calaacalaysa ha noqonin mid jiif badan markasta way jiiftaa ilmihiya oonay way jiiftaa ninkii cunto ka sugayo way jiiftaa markasta waa mid jiif badan waa mid xam badan markasta qofay xamanaysaa ragga ma jecla waa mid war badan maanta dhan ma aamusaysa ayada hadalkeeda ma koobna afar sac way iska hadlaysaa saan waaye kan waaye waxay sheegaysaa ma garanayso waa iska hadlaysaa baahileyda lama raba gabaraysa waa mid qaylo badan afar sac ninka markuu maqan waa qaylinay markuu soo galo waa qaylin ninka qado waxaa looga dhigaa qaylo quraac qaylo casho qaylo ayada shaqo kale male way qaylinay bas wax kale ma qabanayso marka gabdho iska ilaaliya arrimahaas oo kaleeto oo idin jeclahay walaalayga tiin gabdho badan arintan way sameeyaan intaad qaylin lahayd ninkaaga wanaag ugu bedel intaad wareegi lahayd gurigaaga nabad ku joog marka insha Allah waxaan rajeynayaa in aad iyo aad iga faa'iido mahadsantiin meel kastoo joogtiin aniga waa idin jeclahay walaalahayga tiin markasta wanaaga idin la jeclahay gabar kasta Soomaali waxa uu rajeynayaa farxad guul gobonimo insha Allah hadii aad igu cusub tahay subscribe isa videoga like garay share garay ra'yi hadaad qabtid comment igu soo qor waa mahadsantiin sida quruxda badan leh
oo ii sabood garaysiin markasta waa idinkaga mahad celinaya walaalahayga waxaa jirtay xilliga rasuulka sallallahu alayhi wasallam gabar ayaa u timaaday gabadhii markay u timaaday arrin bay ka leedahay arrintii markay ka dhameystay wuxuu ku yiri nin ma leedahay markaasay tiri haa sidee isku tihiin buu ku yiri markaasay waxay ku tiri waxaan u tabar waayay ma ogi waxaan aniga maar u waayay ma ogi aniga wax kasta waan u sameeyaa wax kasta waxaan isku dayaa inaan raali geliyo markaasuu yiri ku dadaal ninkaaga janno iyo naar asiga yani ku hay yani asigana naar ku mutaysan kartaa asigana janno ku mutaysan kartaa nimanka markaa lagu dadaalo insha Allah guriga wuxuu qurux badnaanayaa markuu ninka iska iloobo kibirka naagtana iska iloodo ama ninkaaga ku gumaysto ama ku xumeeyo ama uusan ku yeela insha Allah qoys kasto Soomaali ah oo muslim ah waxa u rajeynayaa guul iyo gobonimo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.